geela markii la qaaday ayaa nimankii qaaday ayaa waxay soo tiriyeen gabayga balla maqashay gabayga asaga wuxuu yidhi irdaa gabay islaam uu baryahan iguma oognayne axdi baan ka maray idina waa igu ogeydeyne aflagaadadiisaa nab ahay aafo godoobeede annaka iyo ii doorno ways aragna caynaaye ajashoon ka gooyiyo waxaan ka istihaadaya ajri baan ka dayayaa sidii ehelkii reecaada isaxaag abaabulinta gaad ma u ashqaaleeyey ilmadiid ma fiicne ee tolkay ma isku wada ogey laba aadan iyo nuur ayuub idanka ma u diiday abbaanduulihii maxamed goob ubaxa ma u saaray ma addayne eeloo jidku amarku qaatiiyey ilaalada ma loo diray kobtii lagu asaynaayey ma soo aragnay dhoolaadanay aradaday joogta aminkii naloo yimi miyaan orodka guufayna anoo silele aaskoo dan yidhi olol ma noo kaahay ilayska iyo dabkay noo shideen gelin ma soo aadna libdhahoo in dheer leeg miyaan weerar ku astaynay adeer saale iyo qoombidaa uura mays qabatay ayaxiyo sidii daad miyaa layla ama kaaga ingiriis miyay nagu maseen aanadan wadani ma onkoday jigraha aadan iyo ula yar maadhiinku ma arag kumay nin aarduunayaa uurnugayl ma lehe iyagoona soo eegin bay orodki yaaceene ma adkaanay erigii horay ku ishqaateene iyagoo aleemale miyaan aayar daba qaaday aashaawad mooye cilaan orodkii mawdida imiriya sidii dawladdii adari oo koodhe ama janan albaabku ku fadhiyey eemar lagu yeesho ama awlal malab oo shiniyey uumi kaga yaacday nin arkaa asheed maalintan wadane eeraana kun aarana kun uureeya iyo kuman irmaanguuna iyo kuman abaartii dhalay oo ubadka loo maalay iyo kuman intay igar yihiin laga unungooyey iyo aragsanoo baarqabkii ayre lagu qoojay intaas oo kuun wadaayniya ayaan ku eriyey qaarkiiyo awal horaba kuma aadanayn arifar ii doore waxa geela aanaysan jiray ubaxa daaroode inta badana nimankii lahaa udusan maayaana awalayda waatay lahayd ololkii muunayse itaal hadday hayaan maalintaas naguma eegena way ugatay si maxaa loogu iman waayo waxaan kaloo wuxuu ku weydiinayaa bal kumaa kale ku xigay ee geelaa asaga ah gabay ka tiriyey ma jirtaa cid kale oo geelaa asaga gabay ka tirsan way jirtay kuma ahaa isla markaa waxaa jirtay cabdigaayir baa markuu maqlay gabaygaasi nimankaas sida ay geela ugu faanayeen ay dhaceen ayuu cabdigahayrna ka xanaaqay ninkaa gabaygiisa waxaana ka mid ahay gabaygan soo socda waxa maqlay cabdigaayir baa dabeetana gabaygiisa xanaaqay oo sidii ninkaas magaalada geela uu ugu faanayey ayay damaqday kolkaa isaga oo nimankii magaalada canaanaya geela lahaa ayuu dhiilaabayay xalay miyaa dhagiida soo booday ma dhabayti dhow baan hurdada dhinacyada u diiday gogashii la eedhigay miyaan dhanis u weydaas sidii qalanjo dhaawaca miyaan dhiraha laynayay sidii naag ninkeedii dhintay oo reer ka dhaxal meertay ma dhulkaan shan baa qoday cabdow dhalasha waa yaal ma dhegxumada kiinkuna maqlay ayaa dhibaya jiidkayga dhabayiciya reer dalal miyaa dhaanta laga keenay ma dhawaaqa cali soo diray ayaa weliba dheeraada dhanuu jiraba daarood miyaa dhool ku wada faanay ma raggaanu dhaxar bixirka u xidhnay ayaa dhudi ku geeraaray dabbaduu ka jeexaa safruhu dheda ka guuraane dharcasii magaaliyo dilaal dhuuntidaa wadaye waataynu dhaabaha lahayn labada dhoomoode lama dhaca annaka beeshayada sida dhukaameede ama geelu saymuu dhashay ee dhaqashadii daaya ama dhiciya sida reer tolkay dhudi ma meerteene ama dhoof waad asii dhalad uu leeyahay buu yidhi cabdigaayir maxamed waxaan kaloo ku weydiinayaa geela isaga cid kale oo gabay ka tirisay ma jirtaa iyaduna way jirta iyaduna ninkaa ka tiriyey maxaa magaciisa la odhan jiray waxaa jirtay nin la yidhahdo maxamuud cali fadal maxamuud nuur fadal nin la odhan jiray oo ku noolaa dalkaasi markaa xaggaa tanzania dhulkaa ku maqnaa ayaa isaguna markii la maqlay geel ayaa saa loo dhacay ayaa la isku qaqabtay qoladaasaa lahayd iyo qoladaasaa lahayd oo markaasaa qolo ay ku wada hadleen qoladii geela lahayd niman kamid a ayaa ay ku wada hadleen geeli baa cidba qiran weyday geeli baa qiran weyday sidii loo qaaday markii farsamadii la arkay ninkaasaa markii dambe uu ogaaday in nimankaas geela lahaayeen ninkaasi markaa lagu dhirbaaxayba sida aan maqlay annagu maanaan lahayn geelaasi muxuu markaa maxamuud yidhi
وحول والله قول انت بينك إذا قيد هذا هو دائما يلول كتيرة بيجي أساد ديال عيار له مهله بيجي لا يضع لما أنت تصدقه دقح أقول فيه يضع حريها الله قد جاي قيد كدين عيس أو أي مركا ولا شيء ودان الفريم موتو بفان كذا هي عارن قط درب كلولا يا بركو ديل مكيف الكيتور تورو دقح كزوسي وبارقب كيدا على نرجع ده في كريواي الشعائر دراسي كل كودون تجرين عي دقل له سنية تواد بحل مودا يو دنو هيك العافية مركو دنا لو قاعد عي ودوك لما توصله قالوا قدي لي ومعدا دم عيساتيو دوش كعسي ديرف كأي عربي كل كوديرها لينا عي وديري ذلك يكليها دين السجايري وديدي الكجيل أمركو ديدي صحيح عي دنجدها كل ديدي ذمران داود الله قصاري دون بركي أوجادين مركو دعتا طبق علي أي أولو كدا عديد الساعة لعن لحيدينه درع في مجالية دلال دون تيبا ولي حبيها على الحبوش لقدعه إيه ديك هبريوني أما دلان تدعي ذكاله لما دقاشيني ديجي عبيه ديبا عن لحين دقص صاريد برواقا لفاها بوبي لا دليا ديرادي حتى يدون بركودي ستان أرم مدى عفتيني بيريدا أيوب كما تكتين سيديك تدعميله دمان عيسى موسانين أوغي سيدح مريانه إذن كان مركي ليدين دعي صوردن بوغصباي وليهين بدومها إستاذ ديقو ما نولينه دن كان نجح كتان باورنها دولي موت هاي حدون بيدون دافعوك لهيو ديري براتينه إربدو مجرسان أفنو ودليري هايبو واد ما سنت محمود وهذا الموده